madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray war-saxaafadeed culus oo uga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee dalka, gaar ahaan hanaanka socodsiinta gogosha wada-tashi qaran ee uu ku baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Farmaajo wuxuu si cad u muujiyay in aan maamulku madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wajahayo arrimaha masiiriga ee dalka uu yahay mid aan la jaanqaadi karin xaaladda adag ee uu dalka u marayo. Wuxuu ku eedeeyay Farmaajo in aan muuqan daacadnimo damiir siyaasadeed oo dhab ah oo ku wajahan hal waara iyo midnimo qaran. Qodobada ugu muhiimsan ee war-saxaafadeedka Farmaajo: 1. Kalsooni la'aan ku aadan gogosha wada-tashiga. madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in aan si dhab ah loo agaasimin gogosha, isla markaana ay ka turjumayo doorkii mas'uuliyiinta ay lahaayeen, gaar ahaan heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Wuxuu sheegay inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wado siyaasado gaar ah oo aan laga wada tashan, taasi oo dhaawacaysa kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. 2. Digniin ku saabsan wax ka beddelka dastuurka. Farmaajo wuxuu si adag uga hadlay ama uga digay qorshaha wax ka beddelka dastuurka iyadoo aysan jirin heshiis qaran. Wuxuu sheegay Farmaajo in aan qorshaha cusub ee doorashooyinka lagu wado uu yahay mid lagu qasbayo shacabka, loona baahan yahay in dib loogu laabto heshiisyadii hore ee siyaasadeed. 3. Xadgudub ka dhan ah xuquuqda muwaadiniinta. Waxaa war-saxaafadeedka lagu xusay cabashooyin la xiriira isdiiwaangelinta qasabka iyo xadgudubka ka dhan ah xuquuqda aasaasiga ee muwaadiniinta Soomaaliyeed, taasi oo tilmaamay inay tahay arrin halis ku ah dimuqraadinimada. 4. Baa ku socda madaxweynaha iyo dowladda. Farmaajo wuxuu ku baaqay in la joojiyo tillaabooyinka halista ee socda, loona laabto dastuurka lagu heshiiyey. Wuxuu ku booriyay Farmaajo madaxweyne Xasan Sheekh inuu dib u eego qaab dhismeedka siyaasigiisa uuna furo gogol rasmi ah oo loo dhan yahay. Haddaba sidee u aragtaa adiga?